بسم الله الرحمن الرحيم ظروفتي oo halkan ay keentay media ay soo fadhiisay waxay tahay waa duruuf aad iyo xanuujisay oo maartay moraalkeygii ama xagga jiritaankeygii dhaawac weyn u geysatay isla hadal iyo isla sheekaysi habeenkii hurdada aan waayay u dhacay waxaa ka mid ah nin waxaan ahaa sharaf iyo maartay hibad iyo maartay karti ragnimo leh oo maanta in badan bulshada Soomaaliyeed ay yaqaaniin oo magaceeygan uu yahay Saleebaan Aadan Sheekh Sambuuska ku magac dheerahay waxaan ka ganacsanayay sambuuska Saleebaan Aadan wuxuu ahaa muruq maalate Alle u siiyay sameynta nooc ka mid ah cunooyinka Soomaalidu ay aad ku jeceshahay ee sambuuska loo yaqaano waana sababta loogu naaneysay sambuusa gabaldhicii maanta waxaa gurigiisa ugu tagay Saleebaan sheekha xarunta cilaajka Daarul Khair Sheekh Muxudiin Salafi kadib markii uu muuqaalkiisa ku arkay baraha ay bulshada aad ka u isticmaasho ee Facebook asagoona ka cabanayay ninkan duruufooyin ku xirnaa noloshiisa gaar ahaan xanuuno iyo jahwareer ku yimid mustaqbalkiisa ayuu sabab uga dhigayay sixiro uu isagu ka shakisanaa naftiisa waana qodobka kaliya ee ku dhaliyay Sheekh Muxudiin Salafi in uu Saleebaan gurigiisa gaaro isla markaana uusan ku ekaanin sheekha xarunta Daarul Khair Sheekh Muxudiin Salafi caawinaad dhaqaale ama kaalmo dhaqaaleed inuu gaarsiiyo kaliya balse gartay in maalin walba in gacan bini aadam wax uu ka sugo Saleebaan aysan kaafinaynin noloshiisa oo abidkeed ayna muhiim tahay in Saleebaan lagu caawiyo sidii uu uga kaaftoomi lahaa gacan bini aadam waana sababta keentay in Sheekh Muxudiin Salafi uu marka hore ku caawiyo ninkan walaalkiisa ah kalaamka uu Alle bare iyo shaqadan uu awoodda koobaad Alle u siiyay Sheekh Muxudiin Salafi inuu ka falceliyo baahida dhibane Saleebaan oo ah in uu ka shakisan yahay sixir laakiinse sheekha xilliga uu daawanayay muuqaalkiisa wuxuu ka rawaxayay shaqada balse waxaa dareen geliyay uu la qiirooday sidoo kalena ku beertay in isla markaas uu ku dhaqaaqo dhinaca guriga Saleebaan dhibta uu sheeganayay iyo ilmaha yaryari ee hooyadood ay ku lamaansaneed ee muuqaalka kala soo muuqday horta wadaan ku jirnaa sida u wada jeedaan gaari ayaan saaranahay intaan u gudagelin halkaan gaariga u saaranahay bal injineerka guud ee xarunta cilaajka ee Daarul Khair maxaa u soo dhaqaaqnay injineer assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaa aan shaqadii ka baxnay oo waqtigii noo dhamaaday shaqada ayaan hadda waxaan gurmad u sameynaynaa dad muslimiin aad ayuu mahadsan yahay waa injineerka guud ee xarunta Daarul Khair alxamdulillaah afar ruux ayaan ku wada soconnaa waa anigoo idin soo gudbin lahaa shaqada la qabanayo iyo waxa loo soo dhaqaaqay iyo injineerka aad u wada jeedeen sheekha xarunta oo asiga gaariga shirkiisa saaran iyo sidoo kale maxamed shira cali oo maamulka guud ah runtii waxaan u soo dhaqaaqnay oo hadda ku sii wajahanahay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho oo aan oran karno waa Shabeellaha Hoose halkaasna waxaan u soconnaa reer dhibaataysan oo gurmad dalbaday oo awoodi waayay qarashaadkii cilaajka iyo shaqadii haddana caruur badan oo aad u da'yarna maxaa la dhahay reerka ay ku nool yihiin sidaas darteed annagoo awoodnay inaan gaari u dirno oo xarunta la keeno haddana xaaladooda markaan aan ogaanay ayaa maamulkii iyo howlwadeenadii waxay isla garteen in reerkaasi aan caawa laga huyan oo loo tago oo si degdeg ah loogu dhaqaaqo reerka iyo xaaladda aan kala kulannana muuqaalka ayaad ku daawan doontaan nala socda hadda cilishan joognaa soo gal anaa wadada inay taagan guriga dugsiga quraanka oo meesha ku quraan oo meesha ku oo far ah صح واي هي daawadayaal waxaanu soo gaarnay xaafadii aan u soo soconay ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana duleedka magaalada Muqdisho sidaad u wada jeedeen Sheekh Muxudiin Salafi oo dadkan internetka kala kulmay isla markaana cabashadooda arkay oo aabihii guriga oo la dhiman sixirkii waxyaabaha uu ka tabanayo marka soo duceeyay insha Allah waxaynu soo gaarnay ceelasha iminka waxaan hagaaya oo sheekhu uu la hadlayay aabaha guriga
oo aad muuqaalkiisa daawanayseen isagaana nagu hagaya oo sheeqana hagaya gurigiisa gowrdhowna waxaan rajeynayaa insha Allah inaan ishaleelno daawadayaal sidaad u jeedaan aabaha muuqaalka aad ka daawanayseen waa kan isaga ayaa halkan noo taagan daaqad u deji sheekha السلام عليكم ان شاء الله سودو ان شاء الله daawadayaal waa guriga ay ku nool yihiin qoyska oo caawinaada uu ugu yimid Sheekh Muxudiin Salafi sida wada jeedaan waa guriga halkan ay degiin waa ceelasha biyaha iminka ayaa samaacadii loo dejinayaa sheekha samaacadaha ayaa loo dejinayaa mar haddii aad aragteen samaacadaha waxaa xiga waa inuu Sheekh Muxudiin Salafi ku bilaabo reerkan quraansaarkii ruqyada oo aad u dheeraa balse aan ku soo koobi doono muuqaalkeena xogta rasmiga ah ee sida uu xaalkooda isku bedelay qoyska markii hal meel lagu wada quraamiyay gadigooda alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين أشهد الله أشهد الله أشهد الله أشهد الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وترى ما بدر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 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 يعلمون الناس الشعر يعلمون الناس الشعر مساكين السعد إله كنت قادر بيو سعد مساكين إله كنت قادر بيو سعد مساكين ومساكين سعد إله كنت قادر بيو إله كنت قادر بيو shayaadiintu way khataro badan yihiin dad badanna way dhibaateeyeen qaarkoodna iminka ayay dhib ku hayaan sida Saleebaan oo kale waxaana nagaanshaha iyo shaqo la'aantaba ku ridayay muddada badanna 80 jini qaarkood loo soo adeegsaday Saleebaan iyo sixir ay dadka qaar ee ka agdhawaa ama qaraabadiisa ay la beegsadeen Saleebaanna waana sababta keentay in markii quraanka ruqyada gaar ahaan aayadaha sixirka uu sheekha reerka ku dul akhrinayay uu Saleebaan u dul qaadan waayay miirkiisana isbedelay indhahana uu ka biyoonayay sida aad muuqaalka ka daawanayseen ama uu ka ilmeynayay هذا جني السحر يا سحرتين يا سحري مساكين قوريا ردي دمر يا سحري يا سحري يا سحري مساكين قال جني إنسيتين يا سحر مي مغليسان ما حد يوقع يستويل كان ما حد يوقع يستن
مركو دقالة سميستو وكبرنا دقالة مركو سميستو وكبرنيسان معاك سفر وكهرنا وولجينا ميل كستنا يوجيجين ميل كست إذنك جيجيو دقالة إذنك كمان عيي ميل ولا إذنك جي سكسجا كده شقدي سوا كبرسان جناشي من مغليسان انتك سرعة ويل كان انتك سرعة نيروبي يكسر عدن نيروبي يكسر عدن يا سعري ويل كان يا سعري ركي دمر يا سعري يا مرقا سعري بس دمر سعرت يا دمر ناقة باسكو جرام نمين ناقة باسكو جرام سعر كما يقصنا وسان وسعرية ما يقصنا قرو هذا قرو هذا ما يقصنا سعرية ودك مساكين كم يقصنا سعرية وريا شن سنة سعرية أيوة في مغليسان انت عم تسوي انت عم تسوي انت عم تسوي وحبا يا وحبا وحبا حنون تسوي جيركيس halkay xanun jisan jirkiisa meel uu fiyo malaha idinkan dhibaatay imaqlaysan meeqa jinti meeqa jin ya meeqa boqol garaysan meeqa kun garaysan ya meeqa way tiridin meeqa sideetan jin yatiin wal Nairobi ku soo raacdeen shaqadiisana wax jooga idinku way iyo sicirkaas mal soo dirsan mal idin soo dejiye caadi u soo gashay ya قانون صدر قانون يا سلام قابت لو صدري ما قوي كو لا صدري هاتي شربة هذا شن جني ولا صدر سدي ساعرنا سو اديك سدي كوبين كان له معك سو غشي دنك لبسك سو غشي لبسك بس شقده يحوق اكر رعدن مي مغليسا مكو غوريسا بس كوي دنك سينا يا مكو غوريسا وريا أقولنا ما انا بتقليسان كسر ما بوشي كسر سو جيب كسر كسر ما كسر ما بوشي مسكاس شغلتي مو فسيسان شغلتي مو فسيسان ودكن مساكينك شغلتي مو فسيسان كسر غور عروشيسا عروشيس كسر غور بوشي كسر ما بوشي انت ما صار بوشي صار عقات كسر بقول كسر ما بوشي او مش بريس طبت مش بريس صار بوشي صار بوشي كسر ما بوشي اخرج باذن الله اخرج باذن الله صار بوشي صار بوشي انت ما بوشي كسر ما انت ما صار فريدي ما صار بوشي ما انت ما بوشي هاو مش بريس صار اما انت ما هاو مش بريس فريدي ما تاجنتين انت ما بوشي ما تاجنتين ما نقول لي سوي لك جدا ما ذيك الكوريا دقالي اسمه ما قال لي حنيسان يا شقد اسمه شيتين انسان مساكين كانوا تجري وريا كوغورا بوشي إله كسر بيو إله مساكين كسر بيو إله عروتنا وبان إله جنياش إله كسر بيو سعرك إله كدو قدر بيو إله وين واحد إله كسر بسم الله الله أكبر علي بسم الله سي عبسي تاريخ عبر فريسو اسكن عشان ذاك فريسو هذا فريسو شوف فريسو اسكن عشان ذاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقعة سلام هذا faadimo cali waa xaaska keliya ee ay wada nool yihiin sidoo kalena caruurtiisa hooyadood ah waxa ayna nala wadaagtay in isla caababa ay qorsheynayeen safar kale hase yeeshee haatanna wejigeedii aan markaan gurigeeda soo gelaynay murugada saarneed ay uu isbedelay farxadna laga dheehan karo ayaa waxa ay qirtay in ay rajo wanaagsan ama uu rajo wanaagsan geliyey qur-aanka uu caawa saaray sheekha daarul khayr sheekh muxudiin salafi anigoo faadimo cali ah wadaadkan salafi waa u duceynaa alxamdulilah wadaadkay ayaamaha sanad oo xanuunsanaay haddoo xanuunsanaay xanuunkii soo u shaqaysanayay shaqadii baa ku soo gabay safar baa noo xiray hadda saan safaraa noo xirnaa safar lena Nairobi aadnay Nairobi waa ka imaanay adana waxaan aadnay baydhabo waa ka imaanay boosaas aadnay boosaas waa ka imaanay kismaayo aadnay diyaarad u raacnay kismaayo waa ka wadamaankaas dhan kismaayo iyo magaaladaas dhan diyaarad ayaa u raacinay alxamdulilah marka waxaas oo dhan adiga maxaa isleed ma aaminsan shahaadiintaas 80 jinni ka soo hadlay ma aaminsan oo waxaas dhahay ciladahan xamar baa iska nacdeynay iska baxale
haddana meesha waa soo haywan haddana waa soo baxnay beedha waa imaanay marka talada oo safarka iyo bixitaanka asma soo jeedinaya marka ha usoo noo soo jeedina wuxuu leeyahay meeshaan Faadimo Amiina anficayso waan bixinaa waxaan aadaynaa Nairobi haddii bil soo joogno hadduu wuxuu leeyahay meeshaan mi anficayso aniga meeshaan dhibay igu tahay waxaan aadayaa beedhawa haddana haddii la soo joogo bil la soo joogo wuxuu leeyahay haddana waxaan aadaa Qardho Boosaaso xaggeeda ka saaya sixirka hadda oo maanta uu sheegay maanta walaalkeen Allah caafiyo walaalkan shiiqana noo yimid nagu caawiyay wuxuu dhahay anaa nigu caawinayo kirsibooyinka iyo wixii dhan haddii xagga la keenayna aniga bixinayo shiiqiya noo yimid hadda quraankii oo loo bilaabay alxamdulillah alshukrillah birin wuxuu dhahay meesha xarunta igu keena wixii gaar raacay mootada xaggeeda anaa dhiibayo dhahay gurigaana kiro noo yahay wadaadka oo kirada kireystaha kisto buuqa dhibaayo dhigka iska qabaa buuqa mikrofonka buuqiisa ayaa dhibaayo marka wuxuu dhahay intan igu imaado waa ii ficnaa lahayd laakiin wadaadka buuqa kisto waa dhibaa xarunta igu keena dhahay mootada qarashka mootadeeda anaa nigu dhiibayo maasha Allah ma insha Allah yaalkan waa ku xiriira muhiimada danta aan leenahay maxaa inuu usoo ii caafimaado oo shaqo haddeer waa ogaatay ma cilada hadda safar iyo ku degdegaysin hadda safar hadda usoo ii caafimaado wadankayga ayaa ka shaqaysanayna shaqadeena waa sambuusle marka shiiqiya noo soo gurmay ilaa usoo khayr Allah siiyo cadawga ilaa ka qabto usoo hadda quraanka igu bilaaway birina haduu ilaahay ii gaarsiiyo xarunta u wada insha Allah waa duubistii farsamadii codeyntii anigoo Maxamed Yuulka inta warbixinta la mid kulmi doona asxaabay nabadgelyo